الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد إخواني هذا الكي صلاة كهرية خطبتي لابد شيء بو كتعلقي أرنت هوري والتفكر في نعم الله نعم كإلهي إنه كفكروا nicmadooyinka ilaahay ee la iska dabaalanayo ee la isaga jiro ee lagu seexanayo ee lagu soo toosayo ee aan laga fikiraynin ee aan la tawaqufaynin ee aan la isweydiinaynin baa ilaahay had iyo goorna xusuusinaya oo uu naga doonayaa inaan bal yar ag joogsanno ka fikirto sawaaء nicamkaas ha noqdaan kuwa khaas kugu adiga ama ha noqdaan mid caam ahoo makhluuqaadka oo dhan aada wada wadaagtaan nicamka khaaska kugu ah waxaa ka mid ah oo kow ka ah wujuudkaaga inaad halkanba timaaddo oo adduunyadan aad timaaddo waa min nicam illaahi calayk waxaad dalbatay ma aha waxaad kasbatay ma aha codsi xaggaaga ka yimid ma aha ومجرد كرم الله وإحسانه إنه كو أغلاده إنه كو مرتقاده بقرتو يدي سليلة الدنيا هذا هرتتاوى إنا دواته كبعدين وإنا تكفكرتها سيدا هدي يقولوا كو حسوسين يا ربك سي هذا مالمها كم إذا هذا يسوء اللوبين ومكبر كو قادن أسهل كاو إنا لغا سميي عيد لغا سميي كدب نطفة من ماء مهين هذا هيد عندوف هذا هيد حنجر يرو ديغا هذا هيد قبل يرو هلب هذا هيد لفير يرب إن إلهي كسميي قبل كهلب كا لفهانا إن إلهي سبحانه وتعالى هلب دوشك ساري هلب كان سان دوشك ساري لابد أدنا كو قرحية يكو هقاجي عنده ماشي وناك سنة كو سميي dhagihii meeshii ugu munaasibsanaa kuu sameeyey madaxaaga kor ka yeelay lugihiina hoos ka yeelay gacmihiina fara u yeelay farihiina xubna u yeelay oo haddaad doonto soo laabayso oo haddaad doonto fidinayso manaaficda fara badan ilaahay hal laf qura uu kaa dhigi karay laf qura haddaad noqon lahayd maadan fadhiisan karteen maadan seexan karteen hawsha adduunka kuuma hagaagteen sida hadda aad u nooshahay umaadan noolaateen inaad ka fikirtaa ilaahayna ku xusuusinaya had iyo goor oo qur-aanka noogu soo celcelinaya oo iyadoo muujaz oo kooban iyadoo tafatiran laga yaabaa inaadan arkinba qur-aanka markaad akhrisato u fiirsato safxa ama safxatayn oo ku soo martay ilaa wayudakiruka rabbulcaalamiina wuxuu ku xusuusin nicamka aad gaafilka ka teedan ogeyn ee aadan ugu mahadnaqaynin ee laga yaabo adduunyada inaad ka tagto adooban ilaahay waad ku mahadsantahay aadan ku odhan ilaahayow laka alxamdu adoon odhan hada huwa atadkiiru binicam illaah inaad had iyo goor xusuusato waataan hadda ka hadlayo hadalkii khudbada ay ku jirtayo habeenka iyo maalinta meesha aan hadda degannahay masaajid yar oo ku yaallo gaar noo ah masaajidka hotel ka mid ah maadaama aan koox koobannahay iska nahay yaa waxaan idhi salaaddii subax markii la aqimayey naga baktiya leyrka waa la baktiyey dan baa laga dhigay xogay salaad yar dheerna waa iska tukannay oo xisbi meelahaasa salaaddii markaan ka baxnay salaaddii kolkaan ka gelaynay maana sharkeyn mugdi bay ahayd salaaddii markaan ka baxnay iftiin bay ahayd jamaacadii baan la hadlo waxaan dhulka aan u baktiyey leerka u baktiyey ma fahanteen anaa idiin sheegi baan waxaan nicmadaas uu leyrku uu qariyey ilaan maba ogid masaajidku waad soo gelaysaa leyr kashaafaadkana ku yaal maba ogid ba habeen goormuu bilowday waxa isbedelka maba arkaysa laakiin markaa mugdi bay ahayd ismaanaan arkaynin haddana iftiin baan nahay iftiinkan xaggee ka yimid mugdigii xaggee tegey
soo inaad isweydiisa ma aha hadda ka horna anigoo dacwo iimaalaha u marayay tuulo aan nalba lahayn laydhba lahayn yaan salaadii subax kadib kelimad baan jeedinay saan u hadalkii u wadnay bay qoraxdii intay soo baxday ayay gidaarka shucaaceedu qabtay markaasaan waxaan dadkii ku iri qaar iska hurdo oo iska yar caajisan iyo si aan u soo kiciyo oon ayaa waxaan ku iri war maanta arrin weyn oo dhacday ma maqasheen arrin weyn oo dhacday adduunka ka dhacday ma maqasheen oo adduunyadoo dhan saamaysay yaabeen markaasay soo jeedsadeen war sheekhu muxuu soo wataa tolow ma BBC dii buu wax ka maqlay ya muxuu maqlay tolow sheekhu buu leeyahay war miyaydaan maqlin baan ku celceliya de sheekhu noo sheeg waa maxay maxaa dhacay wax weyn ayad weyn baa dhacday oo adduunkan markay isfirfiriyeen oo yaaban yihiin ayaan waxaan ku idhi aayadda tan ka weyn maxay tahay aayadda tan ka weyn mugdi baanu ku jirnay ismaanaan arkayn indhaha farta haddii lagaa gelinayo maadan garanayn haddana iftiinkan xaggee ka yimi yaa keenay xaggee ka socotaa qoraxdan yaa ka soo saar shalay galab meel kale lagu ogaay u dhacdaye goormay dhinaca kale ka soo wareegatay halkaasaan ka waday waana taan lagaa doonayay inaad ka fikirto ha iska noolaanin oo adduunka sidaa ha ku noolaanine bal marmarka qaarkii intaad tawaquftood yar joogsato ilaahay koonkaan sameeyey ee habeen iyo maalin kuu sameeyey ku mahadi walxamdu lilaahi dheh alxamdu lilaahi caam amaaha si khaasa waxaa tidhaha allahuma laka alxamdu ilaahu mugdi baa ku jiray adaa maalinna siiyey ilaahoodaa iftiinkanna siiyey maalin keligeed hadday weligeed iska socon lahaydna nolosheennu ma hagaagteene habeenka adaa noo sameeyey oo habeenna siiyey oo maalinna siiyey oo koonkan oo dhan maamula oo hadda qoraxda intaan hadda duhurkii annaga noo ah qolaa waxay joogaan hadda saqdhaxoo habeennimo waa ka telefoonkaad kula hadlaysaa haddaad doontana video baad ku hadlaysaa si aad runta u aragto qaar baa weli mugdi ku jiro qoraxdii u soo bixin qaarna qoraxdeennii maanta beri horey u dhacdayoo saqdhaxoo habeennimay joogaan haddana khalad ma jiro wax khaldamayaa ma jiro adduunkii waa khaldamay wax dhahaya miyaad maqasheen abadan yaa koonkan kala wada oo bihada albadiici alcajiib huwa allah inaad u garato ood ku mahadiso ood ku jeclaato buu ilaahay kaa doonaya haddaad ilaahay ku mahadin weydo oo ilaahay ku jeclaan weydo muxuu kugu fali hani wey daa'iman ilaahay markuu alghinaa fi lkitaab illah haddaad aragto waxaa daba taalla basharow bani aadamow ilaahay waa hani hinihiisa waxaa ka mid a hadduu doono kulligiin ilbiriqsi intuu idin wada kaxeeyo idin baabi'iyo buu kuwa cusub iska samaysan muxuu sheega aayadahaas kasoo bilow suuratu النساء وكان الله غنيا حميدا آية كحكتتي كسحكت محيا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا هدو دون ددكين لنو وين كحينو إبر بودي كدو وين بابين كوع عصب الله يمن سورة الأنعام وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين هل كسوت سورة إبراهيم ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز سورة فاطر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز وما يعني البرقس انتو كو بابيو او كو عصب كانسدو الهي كما ادكا وسمي كرا marka ma adaa baahan mise isaga ku baahan adaa u baahan huwa غني هو لا يحتاج marka inaad ku mahadiso oo nicamkiisa aad u garato uu kugu jeclaanaya wax kalena ka dooni maayo asbaqa alayka ni'amahu nicmadiisu hadda kuma bilaaban kolka janiin yar ahayd calooshooyida ku jirtay
eedan afka wax ka cuni karin ee xudunta uu xadhi kugu xiray ee waxay hooyadaa cunto qayb ka mid a halkaa kuu soo marinayey iyo maalintaad soo baxday eed caloosha hooyadaa ka soo baxday eedan ilka lahayn aad wax ku raamsato kuu diyaariyey caano kaaga keenay yacni hooyada caanaasaheed caano kaaga keenay ee halkaa kayd kaaga dhigay ee bishimo yaryar kuu sameeyey ee carab kuu sameeyey aad ku muudsato ee ku baray sida caanaha halkaa looga nuugo ama looga jaqo waa min nicamillaahi maalintaasay kuu bilaabatay ilaa maantana kaamayna hadhin waxaad cunaysay isagaa kuu sameeyey waxaad cabbaysay isagaa kuu sameeyey waxa aad udgoonkaa isagaa kuu sameeyey markaad sariirta seexanaysa hurdada macaan isagaa ku siiyey markaad soo kacaysa isagaa ku soo kiciyey xubnahaaga isagaa kuu dhammaystiray arag isagaa ku siiyey maqal isagaa ku siiyey araggii wixii lagu arkayay indhihii isagaa kuu sameeyey waasidadii lagu arkayoo nuurka ahna isagaa kuu sameeyey mar'igii la arkayeyna isagaa kuu sameeyey samciga waxa la maqlayo aalada maqlaysa isagaa kuu sameeyey waxa la maqlayana isagaa sameeyey waasidada u dhaxayso hawada ahna allah kuu sameeyey kullu shayin min nicamillaahi weeye hadday kula yaab noqoto tadawurka insaanka maanta bani aadamka uu gaadhay iyo waxyaalahan farsamadaha uu samaystay oo rabbigeen lagu iloobay ogow kulligood waa min allaahi walaysat min gayri illaahi tacaala dadka yaa u sheegay inay boqolaal kilomitir dhulka intay qodaan maaddo la yidhaaho nifti ay kala soo baxaan oo allah sameeyey hadda ogow naftigu wuxuu waa kelima caama ay carabtu hadda isticmaalaan wey waxaa soo hoosgelaya baansiinkii iyo naaftadii iyo waxyaalo fara badan baa soo hoosgelaya iyagoo dhagxanayo halkaa laga soo saaraya dabadeed markaasaa la kala sifaynaya yaa ku ilhaamiye oo u sheegay dee waxaa u sheegay kii berigii ugu horreysay baa u sheegay bani aadamka intuu dhulka qodo inuu biyo kala soo baxo kii berigii horeba ku ilhaamiyey bani aadamow laantan iyo laantan intaad isku xoqdo dab kala soo bax kaasaa ku ilhaamiyey waxaan laydhkan iyo iftiinkan iyo internetkan iyo waxaan kala duulaya wallaahi min allaahi walaysa min gayri illaahi shay ilaahay kayrkiisa waxba kama ahanin ilaahay ku mahadi oo nicamkiisa u garo taas waa qodobka labaad aakhira ka fiican adduunyada waxba ma aha hadalkaasna hadal ma aha waa hadal dhab ah ilaahay daa'iman markuu adduuniya iyo aakhiro isdaba dhigayo caqliga insaanku la khitaabaa وللدار الآخرة خير للذين وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وسورة الأنعام سورة الأعراف كحكتا ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون سورة يوسف ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون سورة القصص وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون وهكذا أفلا تعقلون ماذا العقل إلهي وعقل قوة معي عقل قوة حكادو إياها وحيالها عن عقل قالهين حيوانات كوكالتا حيوان وكالدوك هم نولان الحيوان لا يبالي انتي ساهرة أمبوك فكرية haddii mindi loo sifaysanayo la gowracayo goordhow caws haddii loo keeno waa iska cunaya ma cindahu mushkila adigu saasaan noqonin adigu caqli baa ilaahay ku siiyey caqliga ilaahay ku siiyey iimaankaaga ku fahano in aakhira ay adduunka ka khayr badan tahay garo garashadaasna shaqaha la socoto maaha waan gartay waa iska seexanaya ma shaqayso aakhira u shaqayso camalkaaga aakhiro ha noqdo afdala min camali dunya كن راغبا للآخرة أكثر من الدنيا هذا الكيغا وحن كسو دري مركا قاركيسنا هذا كورنا وادي شيء يعني مركا اللي هي عقله دائما وحن بريقه عاجل كا أما معان كان سوكي وكجدبا منافع ذا وين بو جدبا هذا ضدك تجارة ذا إيش بعد مشتركة مال بمال كشوبية لكن عقلي وذا وحكينا يا مالك ماشي أي كشوبين لذذي شو أي هذا إضافتي وحكبا بهليا ما يحبسي فوقان با 5 كيلو ذهب إيه 5 كيلو حلوى كي قادن لا دقيقة هذه كي قادن لا ذهب قادن لا أوكي هذا هو العقل لكن ويل يرو شنجرة أما كسير ويدي وحترا 5 كيلو ذهب واكن
5 كيلو شوكولاتة أنا واكن كرب تابع أقول له أنا حلوة الربع حلوة أما شوكولاتة وحكى صدق وأغرد كم يلاقي ليش هذا وما ليشنا ومبلغ علمه ومنتهى عقله فكر كيس أنت سودية نعم معانك أنت هل كان إله حلقوك إله قرقة إلا الحلوة دي شوكولاتة دي علوشة تكتو يدي دقيرتي إيو ما كم حياة بهاشي كله يهرورك إيو بريس كويس كمت علوشة مرة ديتك وأنت يرى هل كان مريش مبلغ علمه أنت وي بس ما أبدا سكة سادات ولا هذا شو ترى وردها بك كخير بدنا قاضو كايل وسماي ورمر كامل فهمي محل وجه ذا وحى إلهي ونوبر دقيو أعمال صالحة وسمي ليه ما ذهب كيئة بعد دايما كيئة وعد بلنت إلهي كوكل سونو ميل جنة لإله باجرته في عن وهدات قشو أبدا الأبدي وقت جنة هدات قشو بقر بالغادي يعني أدونك بقر لما بقر مقالة ما وده جوج كران ميدو وإنه جوج هديك والإسلين هي سو ما لما بقر يا لما مدحويني ما أقبل كرته هل مدحوينه يا لته لكن عديري سببه جنة عديري ما يالو هدات جنة قشو دتك جنة قال يوردن ميدو والبقر وي قبر والبو جنة قال سنة بقر دوي إلى حق تشعريني ما يال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد بقر تويدا وغيرنا واتونو شيء النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة ويريد الدنيا تومن لاب كيد بالسين من مسكين الله نجا كوريو جهنم كسوا بحي وجنة قال لي يري وجنة مركو قال يبو إله ويقبح حسنت ورده تقوي واتيلي شيء يا ربي ويقبح حسنت مركاسو إله وحكويني أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا الدنيا دي بقرتوية دي بقر كمل بقرتوية دي سرالي مكوتاي رضيت يا رب الرالي بانا ها لك ذلك ومثله مركي الشناد ولا انت السقا بقرتوية ده يمدل مركي الشناد أيوة رضيت ربي رالي بانا نوضي مركاسا انت لو قمت دينيني ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وحال لو حين دمعان سير وحا عندها كمعان أما نفتاض أي دمع سنتها يدوك لغا مهلو لكن حق وهليشا ولا نهاية وي لا منتهى لشهواتك وي ورغباتك سو ما انت كليا ما ولك مثل الدنيا 10 مرات بهاش الدنيا ذا هي الدنيا دي يودوي هذا بكل قاراتها وبكل مكوناتها طبعا لا بكتب الله وانك ugu darajo hooseeyo adna ahli aljannati manzilatan ballantaa saad marka aad ilaahay ku leedahay hadalkuna ayuu naga baahine hadda laga aan ka bilowno dadaalka hadda ka bilow oo maantadan la joogo salliga nabiga badi calayhi salaatu wasalaam oo quraanka akhri quraan badan akhriso oo caawo salaatul leyl tuko oo amal wax warkan la sheegay amal u gadi hadal ma aha hadal kulliga waa iga wada hadal fiicantii nin walba hadda hadii leeyahay ka sheekee qaar baa soo bixi lahaay oo gab ilaha waliba oo gabay ku dari lahaa ليست المسألة مسألة هذا مسألة عمل بالدونية إن عملك أي كاموقته إن قيام الليل أذياليته إن ذكر إلهي أدلته إن أطلقته مؤثرا للآخرة عن الدنيا آخرة إن أتكدر بده الدنيا ذا هذا يتصدم كوتا هذيك له وحد نقول إن شاء الله هي رأي أنو حلوة دونية هي شوكولاتة أو ذهب كدوري مايو كيلو بوكالة بعد نقول إن شاء marka halka aqligaagi ma uusan shaqeynin allahna waafajiyo khayrka allahna waafajiyo dabigeena allah dhaafo ki waalidiinteena allah dhaafo baldadeena allah barakeeyo ilaahay waxaan ka baryanay oo ku celcelinay ilaahay oo abaarta ummadan ka dulqaad ilaahu abaarta ka dulqaad ilaahu abaarta ka dulqaad ilaahu naxariistaada si ilaahu naxariistaada si inta bugto allah caafiyo inta xanuunka sheegatay allah ka caafiyo inta kurba